بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid axmed xirsi oo ku magac dheer dhexmar. Marka u horeysa waxaan doonayaa inaan salaamo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba, rag iyo dumar. Marka xigta waxaan doonayaa inaan tacsi u diro dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ehelkii Saada Cali ay ka dhalatay. geeridaasoo ahayd geeri aad iyo aad u fool xun oo si faxishnimo ah loogu kacay, loogu dhaqaaqay cid allaala iyo ciddii ka dambaysayba. intaa markaan ka soo gudbo, caawa aniga midday u kaliftay inaan halkan soo fadhiisto oo aan soo gudbiyo waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka soo baxay wixii laga duubay Saada Cali goobtii lagu dilay ayaan jecelahay inaan faahfaahin ugu sameeyo fiidiyoyo laga soo duubay goobta shilku ka dhacay. haddaan soo qaato fiidiyowga la yiraahdo MS Idle ayaan marar badan si fiican u fiirsaday, u tijaabiyey bal waxa meesha lagaga hadlayo, bal waxa meesha ka dhacaya, bal actionka dadku ay bixinayaan. shaki weyn ayaana aad iyo aad fiidiyowgaasu ii geliyey. marka waa MS Idle. marka u horeysa waxaan doonayaa inaan idhaahdo MS Idle ninka duubay waa markhaantiga koowaad dilkii Saada Cali. taasu waa mid oo waxaa kuu caddaynaysa, waxaa lagu tusayaa gaadhigiiyo madaxa meel kula sii jira qof dumar ah iyo nin gashan dhar ciidan oo cagaar ah oo gaadhiga xaggiisa hore bidixda ka taagan dhinaca fiidiyowga lagaga hayo, iyo nin shaar cad oo qofka dumarka ah midigteeda taagan. qofka dumarkii gaadhigay ku sii taaganta sidii qof hubinaya qofka meesha ku dhintay bal qofka uu yahay iyo inuu dhintay. taa markay ka soo gudubtay halkaa ay maraysay qofkii dumarka intay gaadhiga kusii tiirsanaatay oo fiirsaba intay ka soo dhaqaaqday ba intay gacanta saa tiri bay tiri ilaahay noo gargaar. waa shaki koow. shakiga labaad, ninka dharka ciidanka sita gaadhiga xagga bidix oo xagga hore ah ka taagan, ciidan baa tahay qori baad wadataan, dareyskii dalka ayaad gashanta, maxaad meesha ka qabanaysaa adigu? waxaad meesha ka qabanaysid maxay tahay? sababtoo ah ma iman markaa booliiskii dalka la wacay, oo waa booliiska dalku waa nimanka ciidanka dharka kaakiga ah ee cidda wata oo gadaal ka iman doona ood gadaal ka arkaysid fiidiyowga markay yimaadeen. ninkaas meeshu taagnaa, markuu meesha taagnaa ninka shaarka cad ee qofka dumar aha dhinaceeda midig taagnaa, ilbriqsigii saddexaad ee fiidiyowga ayaa xagga dambe intuu kaga yimi ayuu u baaqay, waxbuu u baaqay, wuxuu u baaqay lama arko. ninkii intuu qaaday buu intuu janjeersaday buu wuxuu fiiriyey ninka dharka cagaarkaa wata xaggiisuu fiiriyey. markaa ninkaasu waa ninka albaabka intuu furo Saada Cali hubinaya inay nafti ka baxday iyo in kale. marka taas waa taa. niman markaa meesha dad kale meesha taagan baa wuxuu leeyahay waar hubiya inay dhimatay, hubiya inay dhumatay. wuxuu yidhi war hooye maxaa la hoynaya? hooye kaasuna waa mid waxaa meesha ka dhacay. kaasu markuu uu sidaa yidhi maamisana waxaa la leeyahay waa iyagii iyagu waa iyagee. balaan idi weydiiye, iyagu waa iyagee? waa iyagii, waa dad la isla ogaa inay meesha imanayaan, inay meesha marayaan, dadkii la doonayay weeye de iyagu
waa dadkii loogu talagalay waxan waa iyagii ilaa meel shil ka dhacay haddaad timaado waxaad odhanaysaa war waa qofka dhintay war dadku maxay ahaayeen su-aal noocaashaad is weydiinaysaa laakiin waa iyagii waa iyaga meesha muxuu ahaa waa iyaga meesha lagu sugayey talabaad ta kale oo aniga taa igaga sii daran waxa weeye bal qofkan dumarka ah ee intay timi meel geeriyii ka dhacday qof dumari ku dhimatay ee intay gaadhiga kusii tiirsanaatay gacanta saydhsay tiri ilaahay baa noo gargaaray war xitaa ficil qofka bini aadamkii markuu shil la kulmo uu sameeyo maaha sababta waxa weeye qofka bini aadamkii markuu shil aan ogeyn uu la kulmo qofku wuu naxaa gaar ahaan weliba dumarku ragga way ka calool jilicsan yihiin laakiin ilaahay baa noo gargaaray intay gacanta saydhisay kaasuna waa mid taa markaad ka soo gudubto aada soo socoto ilbiriqsiga 52 videoga waa la goynayaa waa marka Saada Cali la taabtay inay nooshaayeen kale videoga waa la jaray waxa ku soo baxaya cadaan baa ku soo baxaya wax sawir kuma muuqdo anigu waxaan aaminsanahay daqiiqada Saada Cali way noolad oo videoga inta la jaray ayaa meeshii qaylo amal sawirkii baa la qariyay meeshii qaylo ayaa muxuu ahaa isqabsatay codka markaa meesha ka baxayana lama garan karo oo wax ma taqaana aad qaban kartid maaha laakiin videogu wax sawir oo soo saaraya ma jirto taa markaad ka soo gudubto markay askartu timi askarta waa nimanka booliska ciidanka wadanka ee gashan dharka kaakiga markay yimaadeen dadkii waxay ka dareereen gaarigii iyo agaarkiisii nin shaardi limala wata xariiqa leh ayaa ka soo dhaqaaqay dhinacii gaariga Saada Cali oo qori dabada saa ugu sita oo sidii qof ma taqaan xoog u taabacaya ayuu ka dhaqaaqay oo wuxuu dhaqaaqay xaqii dadka kale ay u dareereen kow ninkan ciidanka ee dharka cagaarka wata weli meeshii buu taagan yahay dee ninkan shacabka ee qoriga dabada ku sita ee meesha ka dhaqaaqay muxuu yahay askartii wadanka ee dharka kaakiga watay markay xaggaas inta saas u qaybiyeen bay dhinacyada ka taagan yihiin dee su'aal la isweydiiyo weeye ninkan shacabka ah oo meeshii ciidanku yimi shil ka yimi ninka shacabkii qoriga xagga dambe ku watay bal ilaahay baan ku dhaarshay idinkaan idin diibayaayo aan oran Soomaaliya waxaan leeyahay qof kasta oo xiisaynaya inuu geerida wax ka ogaado bal videoga daawo talabadan waxaan oran lahaa dadka Soomaaliyeed ku oran lahaa videogan haloogeeyo dadka investigationka ku sameeya meelaha criminal ka dhaco haloogeeyo hal la hordhigo si ay u daraasaan bal actionka meesha ka dhacay luqadda haday doonaan yaanay fahmin wixii luqadda waa loo turjumi karaa laakiin waxa weeye in muxuu ahaayay bal daraasaan macluumaadka meesha actionka meesha ka dhacay marka ninka kan darka cagaarka wata ee ciidanka Soomaaliyeed darkiisii labsan ee meesha taagan ee marka nimanka booliska ee dharka kaakiga wata ay meesha yimaadeen isagu wali gaarigii dhinac taagan maxaad ahayd bilowgu uu taagnaa marka uu taagan yahay kow taa markaad kala ka soo gudubto saddexda nin ee mid kaamiradu ay qabanayso laakiin wajigooda aan la istusayn wuxuu yiri war socdaalo aynu sugno محمد داهر aynu sugno socdaalo محمد داهر aynu sugno wuxuu yiri محمد داهر muxuu ahaa wuxuu yiri waa taliyaha ciidanka booliska degmada dabal fiirsada taliyaha ciidanka booliska degmada wuxuu yiri uu jawaab wuxuu yiri taliyaha ciidanka booliska degmada muxuu qaban karaa waxaad wacdaa taliyaha booliska gobolka waa muxuu qaban karaa oo macnaheedu marka maxay tahay markuu leeyahay taliyaha ciidanka booliska degmada wacaya isna uu leeyahay taliyaha booliska degmadu muxuu qaban karaa ka gobolka waa ودسالة على دمات إلهي ونحرست أنا وهالك مركا وحنا فهمي ده نكا عصاينا كحورن نكا سعود نكا وع نكا هوس كجذب أي أنت أفهم مركا تذكر الصوماليات
ee xiisaynaya inay arrinta tan xaqiiqadeeda bal fiiriyaan bal siday wax u dhaceen bal fiiriya dowladda Soomaaliya ee meesha ka jirta ee itaalka daran waxaan maqlay maanta inay laga qabtay 4 nin in laga qabtay oo la yiri waa 4 nin ee muxuu ahaayay dilay Saade Cali ilaahay baa nago waa dhici kartaa laakiin marka u horeysa booliisku haddii nimankaasu ay yihiin nimanka goobta joogay ragga goobta joogay qaar ka mid ah haday yihiin oo waxaan qaadan karo haddaan ahayn waxaan aaminsanahay rag suuqa iska taagtaagan in la soo qabtay oo sababtoo ah anigu shakhsiyan aan qof ahaan aaminsanahay al-shabaab inay tahay dawladdu koox ay u isticmaasho dilka dadka Soomaaliyeed oo sababta waxa weeye Soomaaliya dadku qabiil baa la isu dilay waa la kala tagay waa la kala fogaaday qofan beel buu ka dhacay okay hab casri oo cusub waa in la keeno oo la isku dilo sababta waxa weeye aan sawlay waxa weeye 18 xildhibaan baa la dilay ilaa iyo maalintii dawladdu ay meesha timi 18 xildhibaan ayaa la dilay ilaa iyo maalintii dawladdu meesha timi 18 xildhibaan kulli waxay ka wada yimaadeen gobolada xamar ka baxsan marka adaaba 18 kuba ay ka yimaadeen gobolada ka baxsan xamar itaasu ma Soomaalida baa la sii kala caydinaya ma Soomaalida la sii kala eeraya talabaad meesha tala waxa weeye Xasan Sheekh maanu bayaan oo oran al-shabaab baa dalaysay al-shabaab baa kan samaysay waa al-shabaab waa dadka aad ka soo jeedid waa reeraha aad ka soo jeedid waa dadka ka qabo nin kasta oo hogaamiye meesha doona haysto ha noqdo mid beerad ha noqdo tiin waliba uu ka adag yahay dadka uu markaa u taliyo tusaale haddaan ku soo qaado gas oo ka taliya Puntland Silaanyo oo ka taliya Somaliland de waxaan iyagu aanay raalli uga ahayn ciidankoodu iyo dadkan ay meeshan ay xukumaan dadka jooga waxaan iyagu raalli ka ahayn dadku kuma kacaan waxa weeye haddii ay ku kacaan oo ficilka ay markaa ka soo horjeedaan de way ka daba tagaan waxay raadiyaan cidii waxaan geysatay laakiin maalin kasta waxaan maqlaynaa al-shabaab baa geysatay meesha la isku haystaana waa Muqdisho inta la agtaana waanu garanaynaa shaarka beenta dadka laga daayo oo hala soo qabto dadka waxaan geystay oo suuqa jooga oo isugu ururay meeshan ay suuqa xoolaha sababta waxaan maqlay suuqa xooluhu waxa weeye waa gegida banaan ee dadka laaya ee gacmaha gooya caloosho shaqaystayaashii waa gegida isugu tagaan fiidkii talabaad waxa weeye haddii aan dadka kan ay dhab ka tahay xilligii Ingiriiskii markuu Ingiriisku dadka u caalwaayay wuxuu soo rogay aqli soo rogay wuxuu yiri ninka qabiilkiisu uu wax dilo dafiirso ninka qabiilkiisu uu wax dilo halaga soo jiyo xoolo dhan laga soo jiyo marka taa waxaan uga socdaa war ninka wax geystay oo aad ogaataan ويش جورع على دبوا هقوسته هويدي أبيه ولالكي إن أديركيس واحد على صوتهم ويش جورع على دبوا هقوسته سيك خدم بيا أو قوسته وحوي يسوي تدنول الحسلية كل جام بيكون عيسى لكن نكون مركو أركو إن هويدي لصوت دوبي وأبيه لصوت دوبي وولالكي لصوت دوبي هذا نقول له حرنا يا دكيس قاعد هو كان ما يفهم لي جنودهم بمحها يسامعنا صح marka hadii habkii hore aad ku daydeen waa haday dhab tahay waa haday daacad ka tahay weeye dawladdan itaalka dareen meesha ka jirta haday daacad ka tahay waxa weeye waa haday habkii hore aad ku daydeen ay socon weyday waa inaad hab kale ku daydaan habkan waxa weeye ninkii uu dambigan gal waa in muxuu ahay sidan lagu fiiriyo oo la soo duubo oo la soo qaad laakiin intu wax dilo yaanu iska gil suuqa xoolaha